السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي الوان إنسان ميل بدينا دعوة كجوتة وسؤال هذا كنا كنا عشبة عملية قضبة وركنا أنا ما أنتوا حقوقه وين دولة الفدرال كي مامل قبلت كبلان مامل قبلت كجوبلان عنده أيها ويليس كون عقدوبا وركودا ورك لجسوا كأفرلا تكساع سوس على مامل قبلت كجوبلان دولة تركيا أيها ضدك دولة أوبنا وضع تستنقاله هذا بحوث كير رجب طيب أرتقال sida ay sheegay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan waxa saacadaha soo aadan la filayaa in maamul goboleedka Jubbaland oo go'aan cad ka qaato dawladda federaalka kadib markay ku eedeeyeen arrimo dhowr ah ay ku horeyso burburinta maamulkaas. Maxamuud Sayid Aadan ayaa tilmaamay in golaha amniga Jubbaland ay xeeriyeen ay ka wada tashteen in dawladda dhexe isku raaceen in dawladda dhexe loo jaro saacadaha soo socda go'aan cad laga qaato dawladda farmaajo inay shacabka la wadaagaan ayay mar dhow soo sheegeen dawladda maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxay go'aansadeen inay mowqif adag ka qaataan 24 saac soo socda go'aan uu ku soo saartay la wadaagayso ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba. shir ay magaalada Kismaayo ku yeesheen golaha amniga iyo maamulka Jubbaland ayaa waxa ay ku go'aamiyeen inay go'aan adag ka qaateen dawladda dhexe ee kala dhaxeeya khilaafka xooggan waxaana Maxamuud Sayid Aadan uu tilmaamay in hay'adda nabad sugidda qaranka ay qalalaas ka wada gobolka Gedo kadib markii ay xabsiga u taxaabeen gudoomiyihii degmada Galbahaare isagoo arrinkaas ku tilmaamay mid ka fog dawladnimada iyo uguna baaqay in loo sii daayo xorriyadiisa gudoomiyaha. dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa hadal ka soo hadal qaaday inay habboon lahayd wax kasta in lagu dhameeyo afgarad oo lagu xaliyo miiska wada hadalka laakiinse ay dhankooda ay ka daaleen oo colaadan ay ka socota dhinaca kaliya dawladda federaalka. khilaaf ku dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ayaa haatan cirkas ku sii shareeyay iyadoo horey dawladdu u sheegtay inay aqoonsaneen doorashadii marka kale ka dhacday lagu celiyay oo ku soo baxay madaxweyne Axmed Madoobe taasoo keentay isqabqabsi ku aadan saxaanshaha inkastoo markii dambe ay tanaasuleen qolihii isbedel doonka Jubbaland mana jirto haatan waxay soo dhawaanshaha oo muujinaya labada dhinac inay isku iman karaan. farmaajo ayaa oo horey si xoog ah kula wareegay qaybo ka mid ah gobolka Gedo ayaa wili wuxuu wadaa inuu xoog ku muqoonsho awood ku muqoonsho maamulka Axmed Madoobe. xagga kale tan dawladda Turkiga ayaa dawladii u badnaa ay soo weerareen dhaqaalaheeda wuxuuna Iran shan dawladood ayaa waxay soo saareen bayaan ka dhan ah cambaarin howlgalka uu Turkiga ka wada dalka Liibiya. dawladda Imaaraadka, France, Masar, Qubrus iyo Greek ayaa waxay dhamaantood soo saareen bayaan ku dhaliilayaan howlgalka militariga dawladda Turkiga ay ka wado dhulka Liibiya. wasaaradaha arrimaha dibadda dawladahaas ayaa waxa ay sidoo kale cambaareen waxa ay ku sheegeen dhaqdhaqaaq uu Turkiga ka wado biyaha dhexe ee Mediterranean Sea la dhaho. dawladda Turkiga ayaa waxay sheegtay in howlgalka uu ku fallaagada uu hogaamiyay General Khalifa Haftar oo laf dhungasho u noqday dawladda qaramada midoobay ee aqoonsan tahay ee Liibiya. madaxweynaha Turkiga oo hadal ayaa waxa uu si dadban ugu jawaabay dawladahaas waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhan ah waxa uu ugu yeedhay halganka ay kula jiraan dawladda sharka iyo isha cadaawada ka soo burqanto ee khaliijka. wixii wararkaas ku sii kordhana waa idin soo wadnaa waxaan insha Allah waxay noo tahay wararkeena labaad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.